بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بنقوم هالنقيا بهذا الصحافة حين يسوون نمد إعلامنتا مالنتا جوشا عيدا كإسسي خاتمه وأهمال وين شن يلا باتن كوغس وأهمالين بلشدن كوين مالين عيدنا مدنا إن عيدا كين الحسو لونا مهد عريو جيسياشا مامولكا إسسي خاتمو يورالها هرتي إعلامين تما مالين كاس أي إنه يسوقون نمد حاجر الدد أركتيا فاسدة جريه سوقه ويوم التحرير خدقي arrinkaa wax ka jiraan ma jiraan asaaska SSC maalin bay leedahay maalinkani maalin ciidan weyn in la xuso ciidanka loo mahad celiyo guushoodii looga mahad celiyo xaq bay u leeyihiin waana siinaynaa waana ku xaqsiinaynaa bulshooyinka reer SSC khaatumo iyo walaalaha harti intaba waa ugu bishaaraynaynaa waana ugu hambalyeeynaa soo aadanaanta maalinkaasi soo aadan yahay waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo bulshooyinka reer SSC khaatumo in loo diyaar garoobo daandaansi iyo isyeelyeelka maamulka goosatada ahi ka wado deegaanada ay marayaan socdaalka ku marayaan caynaba iyo meelaha u dhow in dagaal loo diyaar garoobo in ciidanka taakuladiisii la xoojiyo inuu noqdo maalinkaasi maalin ciidanka la isku garab taago inuu noqdo ayaanu ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa qurba joogta maamulka SSC khaatumo ixtifaalaadka iyo xafladaha ay dhigayaan inay noqdaan xaflado lagu garab istaago ciidanka SSC khaatumo oo mudan isgarab taag iyo mahad celin mudan inay arrinkaa u sameeyaan waxaa muuqanaysay oo ayaamahan oo dhan muuqanaysay dhaqdhaqaaq ka soo cusboonaaday dad xunkii ahaa ee halkan laga eriyey dhaqdhaqaaq ka soo cusboonaaday inta aanan cid kale u gudbin dad baa jira deris inala ah dadkaas maamulka SSC khaatumo isimadooda dhaqanku nabadgeliyay ugu baaqeen in badan maamulka SSCna nabadgeliyo ugu baaqay waxaanu ugu celinaynaa cid dambe oo loo oranayo nabadgelyo loogu baaqayo ama loo oranayo dagaal ha gelin ma jirto waxaanu u sheegaynaa shalay wixii dhacay inay tahay wax ay wax ka baran karaan kooda dhinta in laga soo cararo haada looga cararo kooda dhaawacmaana uu daryeel xumo u dhinto kooda la qabtana aan dib laysu weydiin 500 nin baanu gacanta ku haynaa laba caliis ma weydiin waa ognahay hooyooyinka Hargeysa iyo Burco ka barooranaya ee dhashoodii iyo ubadkoodii iyo raggoodii halkan ku xiran yihiin dani hadday idinku jirto dagaalkana rag kale ka soo daba dira haddaana idinku jirinna digniin idin dul saaran weyn cid loo oranayo dagaalka soo gelin ma jirto balse baastoolad hadday xaggan u soo dhacdo abshiru bima kuntum tu'adun qodobkaasi waa qodobka inta raaca waxa weey nuux taani baan maqlayo hadlaya bini aadanku hadalku inuu wax ugu qiimeysan yahay waa wanaagsan halkaas uu ka hadlay 23kii isagoo maleeshiyaad hor jooga wuxuu yiri sababtaada iyo taydu waa hadba waa tii raawis noqota
bal intaadan wax kale noo sheegin bal seeftaadii halkay ku dambaysay horta dadka uga warbixi wuxuu hadalka ku daray og iyo ilaa tukaraq 26 sano loo soo socday oo maalin bayn la soconayay muddadii aad nuuxow masaafadii aad 26 sano u soo socotay xusid waxa mudan inaad hal saac kaga baxday oo 26 sano intaad u soo socotay aad hal saac ku jirtay in baa laga sheegay wuxuu yiri hadii la idin dilo saudinkan diiri jirin maaha ma dawaacteen saudinkii dabacsanaa ma maxaa soo kordhay oo isbedelay miyaydan ahayn raggii shalay rag iyo dab waxa aad gacanta ku haysay annaga gacanta ku hayna waxa maanta isbedelay bulshada aad khaldaysaan ee aragtidooda ku ciyaaraysaan ee cuquushooda aad caayaysaan waa idin weydiin doonaan baan u malaynaya inta waxa raaca hadalkii Muuse ee cilaaminta dagaalka ahaa Muuse lama yaabanin waa ognahay wuxuu dabkan soo geliyaa dadaan u malaynaya in la soo kireysto ayaa dabkan la soo geliyaa dad maanta la qabto ama la dilo loo ooyo oo kaliya laakiin aan loo tarin inta ay nool yihiin Muuse lama yaabno waa ogna oo waa nin dhiig ku koray laakiin waxa la yaabanahay dadkoodu sida raqiiska u yahay ee buushaha ah ee lagu soo shubay cadaabaha lagu soo shubay wuxuu yiri nawaaxiga Hargeysa dagaal ugu nayaadayso nimcadii Ilaahay markuu nooc walba u dhiibay atii nusqaan looga dhigay nebi dirireed antana wixii nooli waa naafa iyo cayd anigana fardin noogay waa naaxayaan guga haddii aad dagaalnaa ushaad naarki doontaa waxaan u malaynayaa shalay isimada halkaa is hortaagay oo ciidamadii celiyo joojiyo yiri halkaa la dhaafi maayo waxaanu ballan ku qaadaynaa bastooladii hadday u soo dhacdo xaggayada in burco mooska celin doono in buudka la iskula tuman doono in nin waliba halkuu ahaan jiray ahaan doono ciidan dambe la joojinayaan jiraynin sidii wanaagsanayd aanu u dhaqannay baan jiraynoo dambe in loo dhaqmo haddii aan adiyadda iyo farafaraynta jiidaha la joojin aad iyo aad baad u mahadsantihiin